اوكيالي التقارين ما عادي ما ونايت فيشن جلاسز بالله ما قرأت habeenkii lagu socdaa jidka markuu caariyaamada iyo roobka uu jiro dhulka very clean uu kaaga dhigay waa arkaysa jidka caadiga ah arkaysa caariyaamada waa dhax galaya roobka waa dhax galaya mugdiga waa dhax galaya meelo indhaha caadiga aad waxba kaga arkiinaad kaga arkaysa gacanta waxaan ku haayo waa muraayadaha ookiyaalkan jiheeyo uu sheegay oo mucjizada habeenkii wax walba fasiix kaaga dhigayo waxaan rabaa marka muuqaalkan inaan 5 su'aalo aan kaga jawaabo ah muraayadahan ookiyaalkan loogu magac daray night vision glasses mise ookiyaalaha habeenkii wax lagu arko maxaa ka jiro waxyaabaha dadka muuqaalka yarka uu sheegay sidoo kale su'aasha labaad aan muuqaalka rabo inaan kaga jawaabo waxay tahay maxay ka caawinayaan sidoo kale maxaysan ka caawinayn oo muuqaalkan ku jiro su'aasha afraad oo muuqaalka rabo inaan kaga jawaabo waxay tahay sidee u shaqeeyaan ookiyaalkan su'aasha ugu dambaysa muuqaalka inaan idin la wadaagno aan rabo waxay tahay haddii qof aad ugu dhibaataysan habeenkii oo darawal tahay oo araga xumi ay jirto ama iftiinka aad uu ku dhibaayo habeenkii oo xilliga wax ka xiinaysidna maxaa laga rabaa inaad sameysid marka hore ku soo dhawaada waa aniga Tarxiya ku takhasus xanuunada indhaha iyo araga waxaana aad u xumahay kala go'a ku yimid muuqaaladeena taxanaaya ee YouTube-keena ah haddeertaana YouTube-keena wuxuu mala 49,000 oo 50,000 halkun kis ayaa nooga harsan waxaan rabaa inaad naga caawisin 100,000 sida ugu dhaqsiya badan aan gaarno waa mahadsantihiin su'aasha koowaad aragna ka jawaab waxay tahay muraayadahan waa ujeedin kalarkiisa jaalaha ah ee night vision glass yiraahdo maxay ka jiro oo haddeertaan muuqaalkan jiheeyo uu ku sheegay in habeenkii ay aad ka caawinayaan koow haddeertaan gadaal laptop ayaa ka shidan markii aan ku aadiyo fiiriye iftiinka cadday inuu xogaa jajaalo uu ka dhigayo waxa waaye in uu meelaha iftiinka ka jiro kale buluuga tiraha badan iftiinka badan inuu xogaa xadfaayo uu ka jarayo saasna qofka iftiinka aad dhib ugu qabay uu ka jarayo waliba arrimaha oo sheegay waa wax sax ah oo qofka hadii uu darawal yahay kale meelaha qiica kale ama barafka da'ayo kale ceeryaamada aad ugu badan tahay kale oo reflectionka aad ugu badan yahay kale muraayadahan aad ay kaaga caawin doonaan oo iftiinka dheeraadka ayuu jaraya oo qofka si fasiix ayuu arki doonaa sidoo kale xitaa hadii aragtay baabuurta kale flashka zaid ku kala shidayo waliba xamar oo kale aad ugu jirta mootooyinka iftiinka zaid qofku ugu shido kale hadii muraayadahan noocan ka awaatid dadka qaar waa laga yaabaa inay ka caawiyaan oo iftiinka inay aad aysan u dhibin intaas waxay ahayd waxa ka jira arintan iyo waxay ka caawinayso muraayadan su'aasha saddexaad inaan ka jawaab rabo waxay tahay maxaysan ka caawin ookiyaalkan hadii meel aad mugdi u ah aad gaari ku kaxeynaysid ma ku caawinayaan sababtoo ah sideedaba ookiyaalkan markii horeba waxaa la saaray xuub jaallo ah oo asiga mugdi la sii geliyo oo meel cadceedeedu ama leerku aad ugu yar oo kale ama tuulooyinka oo kale marnaba kaama caawinaysa inay kaaga sii daraan maahine ookiyaalahan muraayadahan sida u shaqeeyaan waxay tahay in sida hore usoo sheegnaba in xuub jaallo ah oo markaas anti glare la yiraahdo ama iftiinka dheeraadka kala jarayso la dul saaray blue filter aad u xoogana ay ku jirto ayay u shaqeynayaan oo iftiinka markii uu ku dhaco waxay sameynayaan in uu iftiinkaas u jaro su'aasha ugu dambaysa aan muuqaalka inaan ka jawaabo su'aashan waxay tahay haddii aad tahay qof habeenkii aad ugu dhiban aragga oo wax arki la oo darawal ah waxyaabo laga baahan yahay waxay tahay inaad marka hore ookiyaalaha sida noocan oo kale la haysiin inaad markii aragtid kale aad ugu boodin oo aad ku sameysid inaad baaritaan guud indhaha ku sameysid sababta waxyaabo badan oo waxaa jiro aragga hoos u dhigi karo sida caadka kale kamid ah shabakada dambe xanuuno ku dhaco ayaa jiro iyo waxaa jiro kale xataa contrast sensitivity waxa la dhaho qofka si iskiisa ah marka qaar nuurka iftiinka indhihiisa kale aad u yaraanayo oo keenayso hadiiba oo cadceedda ay u dhaco ama habeen ay noqotaba in iftiinka uu habeenka wax ku arkin ciladahaas marka cilada qabtid marka hore inaad iska baartid hadii aadan qabin markaas muraayado noocan in noocyo kala way jiraan markaas oo ka caawinayo marka waxyaabaha sameeyay waxa process inaan raacido baaritaan indhaha sidoo kale hadii cilad ay jirto ciladaas laga xaliyo mid saddexaad agab markaas habeenkii wax ugu arki kartid inaad xiratid
si aad fasiixa wax ugu aragtid. Anaga xarunteena hadda tan Axyaa keeno kala aan joogno kala si maalinle ah haddii maanta imaan maalin kale waa imaan dad habeenada dhibaato ku qaba oo darawal ah siyaabo kala duwanna waan u caawinaa oo markaas adeega u baahan yihiin baaritaan ha noqoto ama caawinaad markaas ku habboon yihiin waa siinaa. Haddii marka aad Muqdisho joogtid iyo haddii adduunyada dacalays joogtid baaritaan indhaha iyo la talinba waa noogu diyaar oo xarunteena Muqdisho ay ku taalaa wartanimada isgoyska Fowlasa dhanka 15 May waa nagu soo booqan kartaa. Haddii aadan Muqdisho joogin oo aad meelo kala duwan adduunka dacalays aan la socotin waxaan rabaa inaan kugu bashaaray in la talin online ah aan sameyno oo aan qaybta linkiga soo dhigayo halkaasna aad iska diiwaan gelisid oo hab maqal muuqaal aan ku kulmi doono oo halkaas ay ka caawin doono. Intaas ayaa muuqaalkeen ku soo gabanay haddii muuqaalka faa'iido laakiin meel walba adduunka joogtiin waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo.